la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen oo la hadlay TV-ga qaranka federaalka Itoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyay safarqaradkii dhawaan magaalada Addis Ababa ku dhex maray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo daarana sidii ay Itoobiya u heli lahayd bad iyo xeeb caalamka ku xidha iyo waliba sidii ay Somaliland uga gacan siin lahayd aqoonsi caalami ah oo dunida ka hesho la taliyaha Ridwaan Xuseen waxa uu sheegay in safarqaradkii ay Somaliland la gaadheen waxa mid lagu muujiyay goobta gaarka ah ee Itoobiya laga kireeyay taasi oo noqonaysa halka dalkan bilaabada ah ku xidhi doonta adduunka intiisa kale goobta Itoobiya soo degi doonto isla markaana ay ku yeelan doonto saldhigga military ayuu la taliyaha Ridwaan ku sheegay inay tahay magaalada Lughaya oo dhacda xeebaha galbeed ee Somaliland haddaba warbixinteennan waxa aynu daaha kaga qaadi doonaa xogaha la xiriira magaalada Itoobiya soo degayso gaar ahaan sooyaalkeeda taariikheed goobta ay dhacdo iyo masaafada ay u jirto dalkan laga kireeyay aynu ku bilowne ee magaalada Lughaya waa magaalo xeebeed dhacda gobolka Awdal ee galbeedka Somaliland si gaar ah Lughaya waxay u dhaxaysaa magaalooyinka caanka ah ee Saylac iyo Berbera oo kaga beegan labada jiho ee cadceedu isaga gudubto waa magaalo qadiimi ah oo ka mid ah marsooyinkii ugu horreeyay ee laga dhiso xeebaha saaran gacanka cadan iyo agagaarka badda cas waxa la sheegaa in ay mar xarun u ahayd boqortooyadii Cadal oo ahayd boqortooyo dagaal kula jirtay boqortooyooyinkii macatabku dirarka ahaa ee ka dhisnaa dalka maanta loo yaqaan Itoobiya waxayna saldhig u ahayd ciidamadii dagaalka ka galay inta u dhaxaysay jasiiradda Sacaadadiin ilaa xeebaha Berbera kuwaasi oo is hortaagay damicii boqorradii Itoobiya ee ku aadanaa sidii ay u qabsan lahaayeen xeebaha badda cas waa magaalo ay cidhifka waqooyi kaga xidhan tahay badda cas oo ah meel muhiimad gaar ah u leh maraakiibta isaga kala gooshta dhammaan dacallada caalamka Lughaya waxay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal u jirtaa masaafo dhan 220 kiiloomitir halka caasimadda Somaliland ee Hargeysa ay ka fog tahay masaafo dhan 270 kiiloomitir sidoo kale magaaladan ayaa dalka laga kireeyay Itoobiya u jirta masaafo dhan 222 kiiloomitir sida uu xusay la taliyaha amniga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Lughaya waa magaalo aan wax badan ka fogeyn gudaha dalka Itoobiya iyada oo 3 jeer laabna ka dhow dekadda Djibouti oo ay horay wax uga soo degi jireen waddanka Itoobiya Lughaya waa magaalo aan lahayn wadooyin dhisan oo ku xidhan dhulka ka soo fog xeebaha Somaliland sidoo kalena ma laha dekad casriya oo wax laga soo degi karo waxayna la duruuf tahay magaalooyinka kale ee dhaca xeebaha Somaliland kuwaasi oo aan haysan adeegyadii aasaasiga ah iyo waliba horumarkii loo baahnaa si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo baxay la taliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Mr Ridwaan Xuseen ayaa hadalhayn badan ka dhexdheliyay bulshada iyada oo si weyn loo qaadaa dhigay sida uu heshiiskaasi uga hadlay la taliyaha Ridwaan Xuseen